ma aysan ogayn shayga ay haystaan inuu ka qiimo badan yahay waxa ay raadinayaan. waa sheekada qisada ninkii la dhintay dahabka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada asxaabta. waxaan kula wadaagayaa qisada sheeko xigmadaysan. waxaynu ka faa'iideynaa waqtiyada adag sida looga gudbo. haddaba intaynaa bilaabin qisada, waxaan rabay inaan ku xasuusiyo soo boqoshada kanaalkan. hadday tahay markii kuugu horeysay, fadlan subscribe saar, videogana like saar, lana wadaag asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid. waxaa intaasii raacaa wixii talo iyo tusaale ah ee aad is leedahay alla ilahay bartaas waad ku qaldantay, qaybta hoose ee commentiga noogu reeb fariintaada. kuna soo dhawow mar labaad qisada sheekada. waqti aan sidaa usii fogeyn ayaa waxaa jiray oday dhalay caruur badan. waxay deganaayeen meel ka baxsan magaalada, una jirtaa masaafo kilomitiro ah oo loo soo socdo loona safro magaalada. maalin maalmaha ka mid ah ayaa odaygii waxa uu yimiday safar kusii socday magaalada, kana soo hayaamay meel isaga kasii fog oo rabay inay magaalada kasoo sahay qaataan. dadkii u yimi odayga ee u ahaa safarka waxaa ku jiray nin u dhiibtay alaab, kuna sii yidhi alaabtaas waa kugu ammaanay, markaan magaalada kasoo noqdo ayaan kuu soo doonan doonaa. waaba yaabe, alaabta waxaa ku jira odaygu iskama eegin. talow alaabta maxaa ku jiray? waxay saasii ahaataba safarkii odayga u yimi ee ku dhaxay habeenkii isla harootiiba way ka socdeen. odaygiina iskama eegin alaabtaa loo dhiibay. odaygu waxa uu ka cabsaday alaabta loo dhiibay inay ciyaalkiisu kharaabiyaan ama ay xadaan ama ay waxxuun ku sameeyaan. isagoo bartaa ka fikiraya, inta uu alaabtii qaaday ayuu guriga dabadiisa hog inta uu ka qoday ku riday alaabtii. alaabtuna waxay ahayd jawaan waxay ku jiraan. horaana kuugu soo sheegay haddaad ila socotayoo alaabta iskama eegin. odaygu inkastuu da ahaa, haddana waa ta kale la garan maayo xilli aad dhimanaysae show waxa ku yimi geeridii. mana uusan dardaarmin alaabta loo dhiibay barta uu dhigay. waxay saasii ahaataba safarkii markii hore u yimi ee magaalada uga sii socday ayaa soo noqday, kana soo noqday safarkoodii iyagoo soo maray reerkii ay markii hore yimaadeen. ninkii alaabta u dhiibtay odayga ayaa isi soo taagay oo yidhi, mee odaygii? waaba yaab, waxba loo sheegay odaygii inuu dhintay. rajaac alaabtan keliya waxaa isla ogaa odayga iyo ninka, oo talow alaabtii ma heli doonaa. waxay saasii ahaataba ma uusan aamusina. ninkii ciyaalkii uu dhalay odaygii dhintay ayuu ku yidhi, may alaabtaydii? waxay ugu jawaabeen si dhaqsi leh, maanaan arag alaab. waa runtooda, looma sheegin alaabtu meel ay taalee. ninkii inta uu fajacay uu yaabay ayuu yisiri, alaabtaydii mee? isaga keliya waxay kaga dhegtay, alaabtaydii mee? la kala teg oo habeenkii yimi, la kala seexay. markay saqdhaxa marayso ayaa ninkii reerka ugu weynaa, hadda waa ubadkee, waa curadkii odayga, ku riyooday aabihii. odaygii dhintay ee isaga aabihii ahaa inta uu u yimid ayuu ku yidhi, aabow, ninkan kuu yimid waa runtiise alaabta waxaad ka qaadaa kana soo saartaa guriga dabadiisa aniga ku haasee. isla subaxiiba inta uu soo cararay inankii ayuu u yimiday ninkii safarka ahaa ee alaabta weydiinayay. dhammaan ubadkii intay isku wada yimaadeen, hoggiina la faqay ayaa laga soo saaray jawaan. jawaanka maxaa ku jira? waaba yaab, jawaanka waxaa ku jiray dahab aada u fara badan. mid waliba inta uu yaabay afkana gacanta saaray ayuu niyadda iska yidhi, show ninkan wuxuu rabay jawaankan dahabka. ugu dambayntiina ninku ma uusan noqonin doqon iska socdee, inta uu dahabkii salli ama caw kaad u garanayso ku shubay ayuu kala qaybi. qayb waxa uu siiyey odaygii dhintay ubadkiisii, qaybta kalena isaga ayaa qaatay. gabagabada iyo gunaanadka sheekadu waxay tahay, daacadnimadu waa dahab. waad ku mahadsan tahay inaad ila soo jaan qaado. ugu dambayna ila dhammaysato sheekada.
waxaan kaaga mahad celinayaa dhamaysashada muuqaalkan. Fadlan waxaan rabaa inaan mar labaad ku xasuusiyo soo boqoshada kanaalkan haddii tahay markii kuugu horeysay. Subscribe saar, videogana like saar, lana wadaag asxaabtaada kaala jeceshay sheekadan. Mahadsanid. Inoo yo muuqaalka kale.